بسم الله. الحمد لله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. دمان ولا الله دابن أيا مال والبأدونك أتكجوبتان إيجا قدوما سلان قالئة سلان حنبارسن نبت نحريس يجعيل إيجا قدوما سلان قالئة كتمت ولال إذن جعل إذن لجعل خيرك. إيجا قدوما سلان قالئة سلان كعت عانها كان مع ملبك كان علس بورها. سلان قالئة سلان النبي صلى الله عليه وسلم وإنوت المامي هادان أناغا لحدين أكفها فينو إن أن إسجعلانينو سلان هادات قفك أتكو سلان تتأتهيلي ست صدن أجر. سلان قالئة سلان كل وحن إذن لا يهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحريس إيا نبت قليو كوكينا هاتو آمين. والله وان فرح سنة هاي فرحة ديدنا لمسو كوبي كرو إن عاو والله فان سو قلي أنيقو أن لا هدليو ولالو أن جعل هاي أيغنا إجعل إلهي وحن ويدي سنة يا جعيل كاس أن اسكو جعلاني أسيغ دغتيسا إن أونوغو كلميو جنديسا آمين آمين. عاو والله meel aan ka bilaabo ma aqaani sababtoo ah qofkaan raba in aan ka hadlo ma ahan qof caadi ah. waxaan rabaa inaan ka hadlo mid aan jecelnahay wallahi, mid qalbigayna aad iyo aad ugu weyn. waxaan rabaa inaan ka hadlo inta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray midka uu ugu doortay. ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka oo dhan markuu abuuray wuxuu doortay waa ambiyada, kadibna wuxuu kasii doortay waxay tahay waa rususha, wuxuuna kasii doortay shantaasoo kala ah nebi aadam, nebi nuux, nebi muuse, nebi ciise iyo nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam. shantaas ayaa haddana laba ayuu kasii doortay, nebi ibraahim iyo nebi muxamed. labadaasna hal qof ayuu ka doortay, waa nebigeeni sala allahu calayhi wasalam. nebiga ayaan rabaa inaan ka hadlo jacaylkiisa, inaan ka hadlo sharafta uu leeyahay iyo qiimaha ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa uu ku leeyahay ayaan rabaa caawa inaan ka sheekeeyo. allahu akbar, wax laga sheekeeyo waxa ugu qiimo badan weeyaan. wallaahi waxaana rajaynayaa mid walba idaabanaya walaalkeygiyow iyo walaasheeda qaaliyada ah waqtigaaga qaaliga inaad qayb aad iga siiso. caawa waxyaabo kale haddaad ku mashquulsan tahay inaad meel iska dhigtid, aad dhahdid midka aan jeclahay hadalkiisa ayaa la sheegayaa caawa inaad dhegaysatid. waxaan kaloo kaa codsanayaa sooma mudna walaalkeygiyow iyo walaasheeda meel lagu sheegayo hadalka midkaad jeceshahay nebiga sala allahu calayhi wasalam in ay qalbigiina ku weynaato, dadka agtoodan ay ku weynaato. waxaan idinka codsanayaa intaanan bilaabin ka hor caawa in dhammaan saaxiibkaaga, walaalkaaga, walaashaada dhammaan soo waac isla daawada. allaha ku xifdiyo. ama waxaad samaysaa fideogan sii faafi, sababtoo ah waxaan jeclahay dhammaan caawa oo jumco ah insha allahu tacaala dhammaan inaan wada ammaano nabigeeni sala allahu calayhi wasalam, salligiisana aan badino, dhagahaaga ay ku dhacaan hadalkiisa, afkaagana ay sheegaan magaciisa, qalbigaagana ay kusii siyaado jacaylkiisa, maskaxdaadana ay u xiisto, adigana aad u xiisid hawo kale caaway la aada. caawa dareen kale ayaa rabaa inaan idin siiyo, adduunyo kale ayaa rabaa inaad ii raacdaan. caawa safar ayaan jeclahay inaad ii raacdaan, safarkaasoo ah caawa waxaan rabaa guriga nebiga inaan aadno. allahu akbar, guriga nebiga inaan aadno oo yacni
aan u fiirsano siday ahayd inaan meeshaas aan ku dhex noolaano aan caawa aan aragno nebigeeni sala allahu calayhi wasalam. waxaan idinka codsanayaa waxay tahay marka walaal walba iyo gabar walba ay daawanaysaa fideogan faafi caawa 10,000 in ka badan ha arkaan ha gariira Facebook jacaylka nebiga sala allahu calayhi wasalam aan u qabna nebigeeni sala allahu calayhi wasalam. allah idin xifdiyo, allah idin barakeeyo meel walba aad joogtaan. caawa waa habeen jimco ah, sidaas awgeeda ayaan u doortay in aan ka hadlo mawduucan. waxaan rabaa inaan ka hadlo mid uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaanay. ilaahay baa ammaanay, allah baa magaciisa sheegay, kor ayaa lagu xusay. allahu akbar, midka ugu sharafta badan magaciisa waa muxamed, hooyadii waa aaminah, aabihii waa cabdullah. allahu akbar, maka ayuu ku dhashtay. waxaan rabaa nebiga sala allahu calayhi wasalam in aan ka sheekeeno yaa ammaanay mataqaanaan? ilaahay baa ammaanay. ilaahay subxaanahu wa tacaala caqligiisa qur'aanka in badan ayuu ku ammaanay. bal walaalayaal hal mar ila fiiriya qur'aanka siduu nebiga u ammaanayo. qur'aanka sida nebiga uu u ammaanayo caqligiisa ayuu ammaanay. ilaahay wuxuu leeyahay caza wajal, maa dalla saaxibukum wamaa gawa. caqliga nebi muxamed ayaa la ammaanaya. ilaahay wuxuu ammaanayaa hadalka nebi muxamed. wuxuu leeyahay ilaahi subxaanahu wa tacaala, wamaa yantiqu cani ilhawaa. kuma hadlo hadal hawadiisa, laakiin hadal walba uu ku hadlayo waa waxyi. hadalkiisa ayaa la ammaanaya. midka ammaanaya mataqaanan waa rabbulciza, waa midka ina abuurtay caza wajal. ilaahay baa ammaanaya. sidoo kale ilaahay cilmigiisa ayuu ammaanaya. ilah wuxuu yihi callamahu shadiidu lquwa. allahu akbar, ilaahay baa ammaanaya, ma ahan dad kala ammaanaya, rabbi baa ammaanaya cilmigiisa. rabbi wuxuu ammaanaya ishiisa. ilaahay wuxuu leeyahay maa zaaqa albasar إلهي سبحانه ما زاق البصر وما طغى. الله أكبر. إلهي سبحانه وتعالى سيدوك لقلبك سأيو أمانيا وحوليها ما كذب الفؤاد وما رأى. إلهي سبحانه وتعالى سيدوك الوحو أمانيا مقعيسا وحوليها ورفعنا لك ذكرك. مقعاق أيان كرء قادني أيو إلهي سبحانه وتعالى أوليها. إلهي سبحانه وتعالى أخلاق ليس أيو أمانيا وحوليها وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاق وين بدن آيات كسوغان تهينا محمد. بل إلهي أسيغا أردن أيو أمانيا وحوليها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما ننكو صدرين إلا نحريس معهنا. نحريس بدن آيات تهي نبي محمد. أخلاق آيات لا دهي. إلهي سبحانه وتعالى أيا أمانيا إنتاس أمان أردن أيو أمانيا نبي يسا مت إلهي أماني أيا غبنا عنا إنا أمان ميان أماني كان واميا. لكن واسكو ضيدونا إن شاء الله تعالى. الله مؤكته ولا ليال نبي والبا إلهي سبحانه وتعالى مكو سود دغيي هدي دبات لو سميل دهوات والدتهي بلو اياتهي اسيغ اي استفاعي نبي بدي لدهو بلو ايات وحو دهان بلو ميه ايدوك إلهي با إذن شيغيا. لكن نبي محمد ويكدونت يا أماني متقادا الله أيا أماني تاريخ ذا معها يا مال نبي محمد ويسكو دفاعي. مكة وغوها يا نبي قال لها استاق قوم كاغا أدك عذابت إلهي أودك شركيga inay ka baxaan u sheeg oo buurta uu fuulay wuxuu yiri yani ilaas miyad may aminin lahada haday idin dheelhaan buurtan gadaashiisa dad ayaa raba inay idin dilaan. ajiib markaas waxay yiraahdaa ha adiga weligaaga been maadan noo sheegin. kadib wuxuu yiri aniga waxaan ahay aniga mid idin digaya idinka digaya cadaabta ilaahay. rabbi kaliya caabuda. kadib abi lahab wuxuu yiri tabban laka sa'ir al-yawm. ma halaaga ku sugnaada mid kamaanta weydiinayo ma arintaas baa noo kulmisay. kadib yaa difaacay mataqaanan nabi muhammad muusan isdifaacin. markii la dhahay halaaga ku sugnaada ma waxaas baa noo wacday ma waxaad leedahay ilaa caabudo ka taga wixii abooyinkiina caabudayay. yaa difaacay mataqaanan allah. ilaahay suuradan ayuu soo dejiyay ilaa maalinta qiyaam la aqinayo. maxay tahay mataqaanan tabbat yada abi lahab wa tab ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب
في جيدها حبل من مسد. الله أيا أماني إلى سبح أيا دفاعي أسيغ موسى إزدفاعين سورة أردن أيا لو دفاعي النبي صلى الله عليه وسلم وحالة دهي وطوالا انتهي كذب إله سبحانه وتعالى آيات دفاعي وحوليه وما أنت بنعمة ربك بمجنون. نعمة إله سبحانه كسي أوجي إذا متيت متوارن مكوان نت أيالا يري بل إله سبحانه وتعالى وحوليه إنا كفيناك المستهزئين. أنا جايان كدفاعي نبالي يري أنا جايان كدفاعي كائل علينا متوال بكو جس سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا جايان كدفاعي أيالا يري نبي صلى الله عليه وسلم متوال بغبة نور كافتين كإنه قعمه سأوكو قري ووالي هيبا. نبي محمد ونور نبي محمد صلى الله عليه وسلم أصيغ أوكال ولي هوي مطلن. نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونور افتي مي أمد أردن وتصالي قف والبكو توسنادا وددي سو ودد وناكسن أيوها هايا وليبانيا قف والبكال يحضنا قصار يا هلاك بأسقنانا يا نبي محمد ونور قفك أسكد يا نور كاس إنو زوليانا أصيغ باكو بابا أي ماشاس. الله أكبر وانكو جعلنا هاي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم. النبي قال جعل هذا ووح إله سبحانه وتعالى وإن أمري إن قلبي جينا أي كبوح لجعل كيسة إن أفكينا ما تودن أكو علينا مجعيسة ومتؤنا أمري إلهي سبحانه وتعالى. إلهي وحوليه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هداتهن كوجعل إلهي سبحانه وتعالى راع نبي محمد كذب أيا إلهي إذن جعلانيا. الله أكبر راعى نبي محمد بالي فاتبعوا نبي محمد راعى ودديس كوه قان سما كذب أيا رب إذن جعلانا يا عز وجل كذب أيا إله سبحانه وتعالى جعلانا يا نبي وحو لي هاي حديث عجيب وحو لي هاي والذي نفسي بيده وحن كدارتي متك قعميس نفس إذا أي كجرتو متكينة إيمان تبهل ما إلا uu iga jeclaado ehelkiisa uu iga jeclaado qaraabadiisa adduunka uu iga jeclaado iyo wax walba adduunka yaala oo dhan uu iga jeclaado. cajiib wax walba adduunka yaala oo dhan iga jeclaado midkiina iimaan dhab heli maayo ilaa wax walba uu iga jeclaado. wallahi rasuulka ilaahay ayaan wax walba ka jecelnahay sallallahu alayhi wasallam. jaceelkaaga ayaa qalbigayna ku buuxa نبي محمد رسولك إلهي وانكو حيسني صلى الله عليه وسلم. عجيب بل ولا ليال إلى فيريا صحابة كو أقول نبي محمد سيدة وجعلايين. أنا إن شاء الله تعالى ما كان سي ولا وحن كهل لدونابا أن سؤال بنسوي دين دونا سؤال نبي محمد مية جعش هاي سيدنا كو أويان كرانو محمد إنا جعل هاي على مدوينك محاكمته ما أنت امتحان أيان قل دونا إن شاء الله تعالى قفل بسيدو كو أويان لها بلوان إذين بشارين يا عاوة وحن إذين سين يا سر تاسو سيدنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم غياد أكل هاي. عجيب عاوة يعني وحياة بدنا صوص إن شاء الله تعالى صاحب كاجي ولا كاجي سوجيد الله كحفظيه يعني شير كله فوق أما أسي شيء واتكون ما هتسنتهاي ولا لا كتيجي إن شاء الله تعالى دب أيو ضابن دونان هدو إلهي إدمو إلهي درتي سباني دي جعلهاي إلهي وحويدي سنة يا أنيغا إذنك ماليت قيامة جنة إن لك لنا النبي جيني صلى الله عليه وسلم قعميه سان كعبنا الله أكبر محاك قوح بلن إيشان هدي كل عاد إيشي عجيب. قصوين بان إذي شيغيا oo tilmaamaya saxaabada sida u jeclaayeen nabiga sallallahu alayhi wasallam. saxaabada sida u jeclaayeen nabiga sallallahu alayhi wasallam. saxaabi ayaa kamid saxaabi ayaa nabiga u yimid dhageystaya xadiiskan cajiibka saxaabi ayaa nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam. markuu u yimid kadib wuxuu ku yiri mataqaanan wuxuu ku yiri rasuulka ilaahay aad iyo aad ayaa ku jeclaa. rasuulka ilaahay wax walba waan ka jeclaa. rasuulka ilaahay guriga markaan aado waan ku xiisaa waan imaadaa.
يعني حتى قوري مكاء وكبح حيستان أو حيس أرقاق آديات باكو جعلهاي. لكن رسولك إله يوم وحنصو حصوصتي أنيقا إنان جيريونيو أذيقنا أدجيريوني ست كدبنا وحان كبقيا إنان جنادا أنكوغو أكوايي وحان كبقيا أذيقا إنات لجنا نقطة أنبيادا إيادتك وناكسن أنيقا مسكين كوايا نسكاي وحان كبقا إندتك عاديقا لجنا نقطة. الله أكبر. wuxuu ka fakarayaa mataqaana jannada inuu rasuulku ku arki waa adduunka maahan janna ka warama jacayl uu jecel yahay jannada ayuu ka fakarayaa rasuulka ilaahay wuxuu leeyahay waxaan ka baqayaa in jannada aan kuugu arki waayo sababtoo ah adiga nebi ayaa tahay waxaad la mid noqonaysaa waxaad la mic noqonaysaa ambiyada dadka wanaagsan aad la mid noqonaysaa waxaan ka baqayaa inaan ku arki waayo. Allah jacaylkaas ayaa laga yiraahdaa xiisitaan iyo jacayl uu qabo. kadib nebiga ayaa u jawaabaya. nebiga saa sheegnaa hadal kuma dhawaaqeen ilaa waxyi ayay ahayd. nebiga wuu aamusay. waxyi ayaa u yimid. jibriil ayaa yimid. aayad ayuu ku soo dejiyey. aayadaasoo ah allahu akbar waman yutic illaha warasuulah qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa ateeca faulaa'ika maca aladiina ancama allah فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. قفكي إلى سبحانه وتعالى رمية إلى سبحانه وتعالى الطاعة يا رسول كيس وحول لم يعن قنيا لجنا نقنيا أنبياء دتك ونايكسن دتك غلو دتك شهداء أيو لجنا نقنيا. الله أكبر. يعني الجنة وتسكو أكيسا يا الله والله اسكو الجنة آيات نقنيسان وادس أكيسان. الله أكبر. جوابته ماشي أيو كهلي saxaabi kale ayaa nabiga u yimid haddana ila fiiriya jacayl caawa ku noolaana jacaylkaas midba qofka hadday dadka ay ku faanayaan jacaylka wax adduunya anagana waxaan ku faanaynaa jacaylka nabigeena sallallahu alayhi wasallam. haddii dadka ay ku faanaan jacaylka anagana mid jacaylkan aan ku faanayno dadka aan ugu sheekeynayno ku celcelinayno waxay tahay jacaylka nabigeena sallallahu alayhi wasallam. wallahi waa jacayl dhab ah xaqiiq ah. jacaylada kale dhan waa jacayl iska bog ah adduunya iyo waxyaabo kale laakiin jacaylkan cajiib bal hadhow waxaan idin sheegi doonaa nebiga sida anaga uu inoo jeclaa. wallahi waxaan ka baqayaa ilin inay idinka da'da yani axaadiistan iyo waxaan ma ahan hadal layska aqrinaya laakiin waa wax taabanaya qalbiga. allahu akbar. saxaabi kale ayaa nebiga u yimid wuxuu ku yiri rasuulka ilaahayow saacadda qiyaamo goormee waay? qiyaamo waa goorma rasuulka ilaah? mata saacadda goormee waay? qiyaamo goormee waay? kadib rasuulka wuxuu ku yiri haya miyaad u diyaar garowday? maxaad u diyaar garowday? maxaad u samaysay? miyaad isdiyaarisay? miyaad isku diyaarisay qiyaamaha? kadib wuxuu yiri mataqaanaan rasuulka ilaahayow aniga ilaahay iyo adiga ayaan jeclahay jacayl idinka ilaah subxaanahu wa tacaala iyo adiga ayaan idin jeclahay buu yiri. kadibna nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri anta maca man axbabt. adiga waxaad la mic noqonaysaa qofka aad jeclaatid. haddaad jeclaatid dadkan kubadda dadkan yani banooniga ciyaaraya bahashas loo buufiyey laba gaban loo dhigay dadkaas ciyaaraya oo 40 milyan la siinaya aad ka dhiganaysid tusaale adduunka oo maxay qabtaan banoonigaas maatanan shabaq ay geliyaan. haddaad ka dhigatid dad tusaale ku ah haddaad ka dhigatid anta maca man axbabt waxaad la mid noqonaysaa qofka aad jeclaatid. yaa jeceshahay adiga? yaa tusaale ku ah? yaa qalbigaada jacaylkiisa ku buuxa? ma nebiga? ma ilaahayba? ma waalidiintaada? ma xaaskaaga? ma dadkuwan wanaagsana? mise qofkan yani ku aqooninba magaciisa oo yani asalkiisa wuxuu yahay la garanaynba miya tusaale ku ah? waa maya. qiso kale iga dhagaysta ikhwaani fillah. saxaabi ayaa la soo qabtay waxay rabeen inay dilaan. su'aal ayay weydiiyeen intaysan dilin ka hor. waxay ku yiraahdeen miyaad ogolaan lahayd raali ma ka ahaan lahayd haddii nebiga sallallahu alayhi wasallam booska adiga hadda aad taagan tahay in la keena diyaar ma ahaan lahayd? raali ma ku noqon lahayd? raali ma ka ahaan lahayd? wallahi hadal wuxuu ku jawaabay haddii
laysku miisaamo asiga iyo buuraha hadalkaas ayaa culays noqonaya. jacayl ma ahan jacayl dhalay weeyaan, jacayl dhaafay waxa la yidhahda ma aqaani, laakiin jacayl ka koreeya jacayl kale, jacayl aabihiis iyo hooyadiis, jacayl dhaafay weeyaan. wuxuu ku dhawaaqay mataqaanaan, wuxuu yiri idinka waxaad sheegaysaan in nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inta la keena halkan, laakiin wallaahi wuxuu yiri maanan ogolaan lahayn in ehelkeyga aan la joogo nebi moxamedna sala allahu calayhi wasalam qodax yar ay muddo. allahu akbar, in la dila iska dhaafee buu leeyahay, qodax yar nebi moxamed sal salam inay muddo anigana ehelkeyga iyo dadkeyga inaan la joogo diyaar maanan ahaan lahayn, mana ogolaan lahayn buu yiri. ka waramahe nafsadooda ayay ka hormarin jireen, nafsadooda ayay ka jeclaayeen nebiga. yacni allahu akbar, nin dhahaya iska dhaaf adi dilaa sheegaysaa in nabi maxamed sal la keeno oo qodax yar ay muddo anigana ehelkeyga iska fadhiyo oo ma iska baashaalay maanan ogolaan lahayn. anagana waxaa laga yaabaa in nabi maxamed aad difaacan iska dhaafeen, anagaba inaad diinta aan kasoo horjeednaba, taleefamadeen ina xumaan ay ka buuxdo, telefishinka guriga hadalkiisa aan lagu sheegin, yacni siiradiisa lagu baran, hadalkiisa lagu aqinin, in asiga baxadow aan ku nahayba. subxaan allah, in qalbigeeda ku magacaado qalbigeeda inay ku degto hadalkiisa oo siiradiisa inaan baran iska dhaafee, bal waxaa laga yaabaa anagaba inaan kasoo horjeedno. subxaan allah, diinta iyo wixii la mid tahay. ilaah subxaanahu watacaala dunuubteena ha dhaafo. aamiin aamiin. nebiga sala allahu calayhi wasalam ma ogtihiin, nebiga ayaa kuu xiisay. ma ogtahay nebiga inuu kuu xiisay? wuu kuu xiisay, adiga ayuu kuu xiisay. wuxuu rabi lahaa, wuxuu rabayba in adiga uu ku arko. maalin ayuu ooyey. adiga weligaa miyaad u oysay inaad fadhiisata istaaday? nebiga sala allahu calayhi wasalam da arki lahaa, siiradiis inaad baratid siduu yahay, qofkuu yahay, akhlaaqdiisa, dhaqankiisa. caaisha inaad baratid, khadiija inaad baratid siday yihiin, aad ku dhaqantid. yacni adigan isku dayday. nabi maxamed sal salamna wuu u ooyey, wuxuu dhahay asxaabteeda ayaa u xiisay. cajiib, anaga wuxuu rabi lahaa inuu nala kulmo. cajiib, nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa loo dhagaxyeeyey, loo dhibaateeyey. waxay tahay sida anaga muslim ah u noqono, wadada wanaagsan ah u hayno. nebiga sal salam ma ogtihiin walaalayaal, طaa'ifa markuu aaday, maka lagu dhibaateeyey, طaa'if magaalo kale ayuu aaday. wuxuu islaa magaaladaas amay ka fiican yihiin. markuu aaday kadib boqorada uu la hadlay, uu dhahay ilaahay caabuda, waxaan ka taga. kadib dadka walwaalan ayay ku diraan, waxay yidhahdeen dhagax ku tuura. dhagax ayaa lagu tuura. nabi maxamed sal salamna wuu ordaya, gadaashiisana dhagax ayay ku tuurayaan. kadib nebiga markuu daalay, meel geed hoostiisa ayuu fadhiistay. kadib waxaa yani nabi maxamed sal salam oo yacni cajiib oo midka ilaah subxaana watacaala uu jecel yahay ayaa dhiig waxay isku da-aya dacwadan iyo diintan dhibaatada uu usoo maray. allahu akbar, intaas dhibaato ayuu usoo maray diinta si anaga ay inoo gaarto. kadib ayaa malag u yimid, wuxuu ku yiri ilaahay ayaa i amray in yacni laba buurood oo isku keen halaaga ayaga oo dhan ay amar buu yiri adigana. cajiib, ilaah subxaana watacaala ayaa ii kaasoo diray, i amar buu yiri. kadibna wuxuu yiri maya, iska dhaaf. waxaan rajeynayaa in ilaahay subxaana watacaala dhabarkoodii uu ka soo saara dad wanaagsan, ilaahay caabudaya. yacni ilmahay dhalaan waxaan rajeynaya inay noqdaan dad diinta u adeega. iska dhaaf buu yiri. naxariis ayuu u ahaa, raxmatan lilcaalamiin. walaalayaal, ma ogtihiin buug uu alifay nin amerikaan ah, magaciisa hadda ma haye. buug uu alifay nin amerikaan ah, buuggaasoo magaciisa la yiraahdo 100 qof adduunka saameeyey. 100 qof waxaa jirto adduunka saameeyey, intaas malaayiin qof taariikhdooda saameeyey, wax qabtay oo cajiib ah, lala yaabayba. qofka ugu horeeya ma taqaanaan? allahu akbar, qofka ugu horeeya ma taqaanaan? number 1 ma taqaanaan qofku yahay? waa muxamed sala allahu calayhi wasalam. asiga xitaa wuxuu leeyahay sababtan u doortay nebi moxamed lambarka ugu horeeya ma ahan in yacni ma ahan asi inuu muslim yahay, laakiin sababta ma taqaanan. sababta wuxuu yiri waa cajiib. aabihiisa wuu dhintay, wuu dhashtay aaba male,
hooyo male waa keligiisa. asigoo sidaas ah ayaa wuxuu awooday maka waa laga dhibaateeyey, madiina ayuu aaday. madiina markuu aaday meesha ayuu dowlad ka aasaasay. haddana in adduunka oo dhan hadda intaas qofta ayuu saameeyey. cajiib. asigoo yacni maal caawisa lahayn, ayadoo lahayn family waxaas ku caabiya, waxaasna lahayn. yacni cajiib. ilaah subxaana watacaala baa la jira, baa ku caabiya arrintaas. laakiin waxaa kooda waxay tahay yacni wuxuu leeyahay waa cajiibba qofkan akhlaaqdiisa sidaas ah, tusaale u ah. dhinac walba haddaad ka fiirisid, dhinac qurux badan un aad arkaysid, oo yacni cajiib weeyaan buu yiri. qof sidaas ah casrigaas ku noolaaday inuu sidaas ahaa. hadallada ilaa hadda laga hayo uu dhahayana cajiib ah, oo xitaa cilmiye markii dadka ay baareen kadib ay ogaadeen inay tahay hadal xaqiiq ah. marka waxaa ka wadaa waxay tahay intaasna waxay tusinaysaa nabi maxamed sal slam sidqinimadiisa. qaarna waxay leeyihiin dhulkan kuma socon mana soo mareen mid nabi maxamed sal slam oo kale ah. qaarna waxay leeyihiin hadday adduunka hadda tusaale ay ka dhigan lahaayeen nebiga, adduunka hadda xaaladda ay ku suganta maysan ku sugnaan lahaayeen, way isbedeli lahayd. allahu akbar. bal qaar waxay leeyihiin dhibaatooyinka hadda adduunka haysata midka keliya xalin kara waa nabi maxamed. wuxuuna ku xalin lahaa waxay tahay si run ah iyo daacad ah ayuu ku xalin lahaa. cajiib cajiib. bal sidoo kale gaalada cilmiga yacni lagu barto qofka in oo ummad uu xukmo waxay tilmaameen sifooyinka qofka dadka xukmo uu leeyahay. waxaa ka mid ah inuu noqdo الصادق الأمين. الصادق waxaa la yihahda qof runlow ah, been ummad dhan u sheegin, iyo sidoo kale amni ah oo aamin ah, wax hadaa u dhiibatid ku qiyaanin. sifooyinka labaad ee ugu muhiimsan qofka dad xukmaya laga rabo waxay yidhahdeen waa labadaasna nebi maxamed ayaaba lehba. inta ilaahay soo diran ayaa lagu ammaanaya. waxaa lahayay saadiqul amiin ayaa tahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. mawduuca aad iyo aad bay badanta, waxyaabo badan ayaa hayaa. weli hadda mawduucay maba sii gudagelinba. maanta o dhan hordhac ayaan hayay. weli waxaan hayaa 3 warqadood raba maanta inaan ka sheekeeyo. muxaadarada weli mala soo gelin, sababtoo nabi maxamed sal slam yani ani marka ugu horey waa idin sheeg meel aan ka bilaabo ma aqaani. sababtoo midkaa rabta inaan ammaano waa nebiga sala allahu calayhi wasalam. su-aasha waxay tahay aan ka bilaabi doono muxaadarada waxay tahay sidee ayaan ku ogaadaa waa maxay calaamadooyinka lagu garto qofka nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu jecel yahay. waa maxay calaamadooyinka lagu garto qofka nebiga inuu jecel yahay? midka ugu horeeya waxay tahay taacatuhu fima amar, inuu qofka uu ateeco, inuu qofka uu raaco wax walba uu nebi sal slam uu amray, uuna ka fogaado wax walba nebi sal slam uu dhahayaan la samayn, ha laga fogaado inuu ka fogaado. qof walba qofkuu jecel yahay wuxuu dhaha wuxuu jecel yahay inuu sameeyo, soo maahan? nebigana wax walba uu dhahay, wax walba uu ka fogaaday, uu dhahay ha laga fogaado. anagana inaan ka fogaano, wax walba uu dhahay hala sameeyo, anagana in aan sameyno waa wax ilaahi subxaanahu watacala ina amray. nebigana wuxuu leeyahay kullu ummati yadkhuluuna aljanna ila man aba, ummadeeda dhan jannada ayay gelayaan ilaa qofkii diida maahane. saxaabada way yaabay, yaa diidaya rasuulka ilaahay oo jannada? kadib nebiga wuxuu yiri man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa. qofkii aniga ay ateeco jannada ayuu ogolaaday, ayuu gelayaa. qofkii aniga ay ateecin i maqlin hadalkeeda qaadanna qofkaas waxaa u dambayn doona waxay tahay cadaab. qofkaas ayaana diiday ayuu nebiga sala allahu calayhi wasalam uu leeyahay. taas waa ko. su-aal ayaa ku weydiinaa walaalkeygiyo. anaga waxaan dhahnaa inaan jecelna nebiga sala allahu calayhi wasalam, bal wax yar aan isxisaabino. su-aalaha waxay tahay nebiga sala allahu calayhi wasalam inaad jecesha sidee baad ku ogaanaysaa? midka ugu horeeya waxay tahay adiga nolol maalmeedka aad nooshahay miyaad u noolaataa sida nebi sal slam uu u noolaa? guriga markaad gelaysid miyaad ku gashaa sida nebiga sala allahu calayhi wasalam uu u geli jiray? musqusha markaad gelaysid miyaad u gashaa sida midkaad jeceshahay qalbigaaga nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu u geli jiray miyaad u gashaa? cuntada markaad cunaysid, biyaha markaad cabaysid, bismi illaah, miyaad u cabtaa sida nebiga sala allahu calayhi wasalam uu cabi jiray? dadka markaad la dhaqmaysid miyaad ula dhaqantaa sida nebi sal slam dadka kale uula dhaqmayay? dadka sidee baad ula dhaqantaa?
iyo wixii la mid ah oo dhan isweydii, isxisaabi. nolol maalmeedkaaga nolol nebiga sidee bay kala yihiin? haddaad dhahdid qofkaas ayaa jeclahay, waxaa loo baahan yahay inaad asiga oo dhan tusaale uu ku noqdo aad raacdid. isweydii, yaad ku dayataa adiga? ma nebiga mise qof kale? waa su-aal mudan qofka caawa inta uusan seexan ka hor in uu isweydiiyo insha allahu tacaala. aan isweydiino, waa su-aala muhiimsan. nolol maalmeedkaaga iyo nolol maalmeedka musaacasa sidee bay u kala yihiin? guri miyaad u cesha? sababtu waxay tahay qofka runlowga ah, qofka kale jecel sida uu yahay ayuu u jecel yahay in uu u dhaqmo, asigana in uu sameeyo. midka labaadna waxay tahay barashada siiradiisa, inaad baratid waa kuma nebiga sala allahu calayhi wasalam, waa kuma xabiibka nabi sal sidee buu ahaa? markuu soconayay sidee buu u soconayay? markuu hadlayay sidee buu u hadlayay? dhowla cadayntiisa sidee bay ahayd? markuu kaftamayay sidee buu u kaftamayay? markuu hadal gudbinaya sidee bay ahayd? markuu uu waxay samay sidee bay ahayd? baro nabi sal slam sidee buu ahaa? qof sidee ah buu ahaa? da'diisa wixii la mid ah inaad baratid, magacyadiisa, waxyaaba uu jeclaa, inaad baratid nabi sal slam. qofka mar walba aad sii baratid waad sii jeclaanaysaa. sii baro. hadda waxaad shidataa muxaadarooyin youtube ay ku buuxdaa siirada nebiga oo nabi sal slam qofku dhan kuu tilmaamaya. sababtu waxay tahay qofka aqoon buuxda markaad u leedahay ayaad jeclaanaysaa, qalbigaaga jacaylkiisana ay kusii siyaadaysaa. taas waa lama. midka saddexaadna waxay tahay kusalinta waxaa ka wada waxay tahay magaciisa inaad sheegtid, inaad ku salisid sala allahu calayhi wasalam, nebiga sala allahu calayhi wasalam magaciisa inaad sheegtid. hadda midkeena hadduu jeclaado kasoo qaad xaliima, maanta dhan wuxuu leeyahay xaliima saasay dhahday, xaliima saas weeyaan, xaliima saas. ama hadday xaliima jeclaato, faarax hadday jeclaato maanta dhan waxay leedahay faarax saas uu dhahay, faarax saas waa faarax. yacni sheegitaanka magaciisa ayuu jecel yahay. anagana midkaan jecelnahay waa nebiga sala allahu calayhi wasalam. waxaa loo baahan yahay mar walba magaciisa inaan badino, inaan dhahno sala allahu calayhi wasalam. allahumma salli calaa sayidina muxamed 1 mar, 100 mar, 10 mar, 1 mar, inta aad awoodid nebiga sala allahu calayhi wasalam inaad ku salisid magaciisa badi. wallahi fadaa'il iyo fadli aad iyo aad u badan ayay leedahay. hal qiso ayaan idinkaaga sheekeynaya. qisadaas waxay tahay maalin ayaa ayeeyo oo da ah cunug ayay dhashay. cunugaas waxay ku tiri wiilkeygiiyow, su-aal ayaa rabaa sheekh inaa weydiiyo, mana awooda inaan socdo bax sheekh, yacni ii keen. wuxuu yiri wiilkii, waan baxay masaajidka ayaan ku tukaday, sheekh ayaan arkay. sheekhii waan weydiiyey, waxaan ku dhahay sheekhow, dhageystaya, sheekhow ayeeyo ayaa ku rabto. sheekha wuxuu yiri salaada casr markaa tukana kadib waan israacnay. salaada casr ayaa la tukaday. sheekha wuxuu yiri waan baxay, anagoo aan socono waxaan arkay buu yiri guri oo caadi, guri oo dadka faqiirada degan iska tawaaduca, guri iska yar caadi ayaan arkay. waan galnay buu yiri, waxaan arkay ayeeyo da ah. dhageystaya, waxaan arkay ayeeyo da ah ayaan arkay oo maantoo dhan dhahaysa sala allahu calayhi wasalam, sala allahu calayhi wasalam, sala allahu calayhi wasalam ayaan arkay iyadoo dhahaysa. kadibna meesha ayaan fadhiistay ayuu yiri. kadib ayeeyadii waxay i tiri, assalaamu calaykum sheekhow, aniga waan ogahay gaaja hadday i qabato, waan ogahay inaan cunto a u baahanahay. haddaan xanuunsado waan ogahay isbitaal ayaan aadaa. sheekhow, hal dhibaato ayaa i haysato. wallahi dhibaatada ila dhegeysta, hal mar waan idin baryaa, dhibaatada ay sheegaysa dhegeysta. waxay leedahay, aniga nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam habeen walba riyo ayaa ku arki jiray. 3dan habeen ugu dambeeya riyo maanan ku arkin, waxaana ogaaday qalbigayga inay xanuunsan tahay. sheekhow daawo isi. allahu miyaan idinkugu celiya? aan idinkugu celiyo. waxay tiri, sheekhow, aniga habeen walba ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam riyo ku arkaa. 3dan habeen ugu dambeeya maanan arkin midkaa jeclahay, waxaana ogaaday qalbigayga inay xanuunsan tahay, in yacni dembi aan sameey, wax inaad sameeyey. sheekhow daawo isii. allahu akbar. sheekhi waa naxay ayuubay, waaba yaabayba, yacni waxaa la yaabay ayuu yiri.
qaar muslimiinta ka mid ah weligooda nebi sal slam riyo maysan ku arkinba. ayadana waxay sheegaysaa habeen walba ayaan riyo ku arkaa, saddexda habeen ugu dambeeya maalin arkin midkaan jeclahay daaweysi. way yaabay ayuu yiri, maanan ka filanin, way yaabay ayuu yiri. cajiib, allahu akbar. sheekhi wuxuu yiri anigoo yaaban ayaa meesha kasoo tagayba. cajiib, anigoo yaaban ayaa meesha kasoo tagay, ayaa ka tagay meesha. caawa waxaan jeclaan lahaa qalin iyo waqad inaad soo qaadatid. waxaan kuu sheegayaa waxay tahay sida nebiga sala allahu calayhi wasalam riyo aad ugu arki lahayd, sida nebi sal salam riyo aad ugu arki lahayd. midka ugu horeeya waxay tahay mataqaa, horta hal qisna ka horumarinaa, kadib insha allahu taala qisadaas ayaba ku dhex jirtaa jawaabta. maalin muxaadarana waa sii wadi doonaa insha allah, laakiin su-aashan hadday waxaan dhahay waan ka jawaabi doonaa, marka waxaan jeclaysnaa haddaan ka jawaabo, haddii kale waan iloobayaa. su-aasha waxay tahay sidee ayaa nebi sal salam aan ugu riyoodaa. midka ugu horeeya, maalin ayaa wiil dhalinyaro ah wuxuu aaday sheekh, wuxuu ku yiri sheekow aniga waxaan rabaa nebiga inaan riyo aan ku arko, sidee ayaan ugu arkaa? dhegaystayaa qisadan cajiibka ah, sidee ayaan ugu arkaa? kadib sheekha wuxuu yiri okay, nebiga miyaad rabtaa riyo inaad ku aragtid? ha. markaas wuxuu yiri okay, caawa aniga ila seexo, caawa aniga ila seexo, aniga ayaad ii marti qaadan tahay buu yiri. haye, kadib cunto badan ayuu u keenay. ninka cuntadii dhan wuu cunay. markuu raba biyo inuu cabo wuxuu dhaha maya, biyo ma cabaysid. wuxuu yiri hal shardi, biyo dhan ma cabaysid caawa. wuxuu yiri sheekho maxaa mayuu yiri biyo dhan ma cabaysid maanta. hayuu dhaha bis cuntadii cunay, biyo dhan ma cabin, biyo dhan ma cabin. marka walba biyo uu rabo waxaa la maya, biyo cabitaan ma jirto. kadib habeenkii wuu seexday. habeenkii markuu seexday kadib subaxda ayaa lasoo kacay salaada subax. sheekhay wiilka ayaa fadhiista. marka wuxuu yiri haye wiilkaygiiyow xalay maxaad aragtay? ii sheekay xalay maxaa aragtay? wuxuu yiri xalay nebiga riyo maanan ku arkin, waxaan arkay xalay anigoo biyo cabaya anigoo biyo cabaya ayaa ku riyooday. markaa sheekh wuxuu yiri waa ka jawaabta su-aashaada, waa ka way isku dhamaatay, waa haysataa, furaha waa ku siiyey. wuxuu dhahay hee maasi aw furaha? wuxuu yiri xalay dhan maskaxdaada waxaad ku haysay, aadna dareensaneed, aad dhaqdhaqaaqna aad muujinaysa waxay tahay biyahaas. waxaad ka fikiraysa biyahaas, waxaad adi dhan aad ku mashquulsaneed, focus aad samaynaysa biyahaas ayay ahayd. xalayna biyahaas ayaad ku riyootay. cilmi baarista waxay tilmaamayaan qofka maalintii wuxuu ku mashquulo, adiga maanta o dhan baawol hadaad fiirsid, wow audi BMW baawol hadaad fiirsid, asdhaadid baawol hadaad fiirsid, caawna waxaa ku riyoonaysa adigoo baawol kugu dambeeya saaran. haddii mooto aad ku riyoto diyaarad, yani waxaa ku waxay tahay marka haddii maalintaada oo dhan aad u dhaqantid si nebi saa uu u dhaqmi jiray, musqusha markaa gelaysa waxaad dhehaysaa maya, ducada nebiga ayaa sidan ayuu ku geli jiray. waad gelaysaa, waad dhehaysaa, waxaa leedaha maanta waa isniin, waa soomaya, nebiga ayaa soomay, salligiisa ayaad badinaysaa, sheegitaankiisa qalbiga ayaad ku haynaysaa. mar walba allahu akbar, qalbiga siiradiisana waad aqinaysaa. maanta o dhan waxaad ku mashquulaysaa waxay tahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaad ku mashquulaysaa. siiradiisa ayaad sii baranaysaa, siiradiisa ayaad baranaysaa, ayaad waxyaaba badan ka aqinaysaa. nololmaalmeedkaa u dhan dhaqa qof arda inaa u sheegi waxa maya, nebiga sida midkaan jeclaa saas muusan ula hadlin, saas cajiib. yani hadalkaaga iyo adigoo dhan nebi saaxsan siduu ahaa, sheegitaankiisa badi, sheegitaankiisa sala allahu calayhi wasalam. allahuma salli calaa sayidina muxamed, allahuma salli calaa sayidina muxamed. sheegitaankiisa badi, magaciisa sheeg, yani siduu wuxuu samayn jira sameey, waad ku arkaysaa. waxaana jeclaan lahaa haddii aad samaysid, aad ku aragtid, inaad insha allahu tacaala aad ila socodsiisid. baaraka allahu fiik. qaar waxaa jirta sidaas sameeyey oo yani noloshooda isbedelayba, maasha allah. acmaasha samayn jirana u samey sida nabi maxamed u samayn jiray. nabi maxamed sidee ayuu salaada u dukan jiray? wuu bartay, nabiga saas ayuu dhihi jiray. allahu akbar, nebigeyga ayaa ku dayanaya, nebigeyga ayaa sidan u soconayay, nebigeyga ayaa sidan ahaa, hadalka runta ayaan sheegaya, beenta waa ka fogaanaya, xaaraanta ma qaadanayo. sheegitaankiisa waqtiga waqtiga firaaqada waxba aanan haynin waxaan badinayaa sheegitaankiisa. allahuma salli calaa sayidina muxamed, allahuma salli calaa sayidina muxamed. in sha allah waad ku riyoonaysaa biidni illaahi subxaanahu wa tacaala. sheegitaankiisa, siirada iyo wixii la mid ah. ku sallinta nabi maxamed sal ly slam faa'iidooyin badan
أي لا إله سبحانه وتعالى يا قرآن كيس نو أمر إن نو محمد صلى الله عليه وسلم وكسلنا إلهي وحوليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلهي الله هي ملائكتيسا waxay ku salinayaan nabiga sallallahu alayhi wasallam kuwa ilaahay rumeeyo idinkana adiga hadda sameey ku saliya nabiga sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammad ilaahay ayayna amray hal mar dad ku salisidna 10 mar ayaa lagu laba jibaaraya 10 mar ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku labalaabayaa hal mar hadaad ku salaysid nabiga sala allahu calayhi wasalam sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala hamigaagii dhibaatada ku haya dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kaa qaadayaa wuu kaa feedayaa walaalaha waxaan ka codsan lahaa walaala baa jirtay soo wacaya walaalaha i yaqaana soo wacaya insha allahu tacaala life ayaan ku jiraa yaanan la soo wicin haddii la soo waco qadka wuu go'aya barakum allahu fiikum allah idin xifdiya ilaah dartiisa baan idin jeclahay qofkii ku saliya ilaah subxaanahu wa tacaala hamiga dhibaato murug oo dhan wuu ka qaadaya همي دباتة مكو خبطي نبي كوصل تجابي والله تجابي أنا قارئ يعني علماء وحان أكي تجابيي ده هاي عجيب وعجيب دباتة مكو خبطي مكو خبطي سلي نبي كودال اللهم صل على سيدنا محمد نبي آيات ده هاي مروك دباتة ده ول والباق لأن إن يعني قفك أي إله سبحانه وتعالى وكقاضي ونا كفيديو يسيدو كلا جعل كنبي محمد آيات كو زيادة إله سبحانه وتعالى أنا قديو كو مغولبا كو صلية أمانية يسيدو كلا قفك أرقيسا إن أحيسو يوحي لمدا إن شاء الله تعالى محاضرة أي دياسن هذا قار أيان شاقي ما نجعل إن إذا كو بضية صوبته حتى والله لا تسادي جعلها وأن أوجها إن تيمت ما شاء الله خير وأنا كو مشغول سن لكن إنت يعني لها وينوغو في الانتهاي إنت هذا عاوة أما قلنا إنه كل قلنا الله أكبر جمعة بشاء تعالى وحسكو ضيدونا هبين مكي جمعة سو جليسو inkastoo aan ballan qaadin habeen laakiin insha Allah taala waxaan isku dayi doonaa nabi saacas inaan wax ka baqano akhlaaqdiisa dabiicadiisa sidoo ahaa qof sidee buu ahaa ilaa yani ina waxyaabo badan ay ka sheekeen doonaa insha Allah taala si dhamaanteena qalbigeena ay ugu buuxdo ay ugu badato jacaylkiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahayo qalbigeena ku buuxo jacaylka nabigaaga ilaahayo nabi muhammad waan jecelnahay ilaahayo wax walba waan ka jecelnahay ilaahayo jacaylkaas dartiis nagu geli jannadaada ilaahayo qalbigeena ku buuxo jacaylka nabigaaga ilaahayo naga dhig kuwa ku dhaqma sunnadiisa kuwa ka fogaada wuxuu ka fogaaday ilaahayo naga dhig kuwa hayo wadadiisa ilaahayo naga dhig kuwa ku faana nabigoodi ilaahayo naga dhig kuwa ku faana nabigoodi sallallahu alayhi wasallam ilaahayo mid walba nabiga ku jeesjeesaya mid walba hadalka nabiga diidaya ilaahayo shartooda ilaahayo naga qabo ilaahayo mid walba nabi sallallahu alayhi wasallam wax uusan ahayn ku tilmaamaya asiga yani عجيب الله سبحانه وتعالى قفكاس انت اخر لا الدنيا يكو عذاب يابا قار وحا لا يابا اسوقين ان يعني رسولك ولا عن وحلم دا اما قار قال الله سبحانه وتعالى ها هنونيه قار وحاجه حماني وحكو تلمامه سبحان الله لكن الله سبحانه وتعالى نور كيسا مغنى لمد منك الله اكبر اله نور كيسا qofkii isku daya nuuka dhan adduunka qoraxda adduunka hal gacan inuu saas ku dhamiyo awooda waxa la ilaa mawaaladaada qoraxda adduunka ma qabta hal gacan inaad ku nuusan maya allahu akbar nabi muhammad wa nuur wa kawkab wa dhulka oo dhan nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam asiga ayaa wax walba jaceylka aan jecelnahay asiga ayaa noogu culays badan ayaa ka badan wax walba adduunka yaalo dhan nafsadayna dhiigeena wax walba waan ka jecelnahay nabigeeni sallallahu alayhi wasallam allah idin xifdiyo allah idin barkeeyo meel walba aad joogtaan allah naga dhiyo kuwa sunnadiisa يا أدوينك تسكو شيئا والله ما حنا خير بدن
dad badan kale ayaa jirta hadda xumaan ku mashquulsan laakiin adiga wallahi ilaahay ku mahad celi anigii adiga waa inaa ilaahay ku mahad celinaa nicmadan hadda aan haysano nebigaas ku sheegaynaa qur-aanaas ku sheegaynaa maan waxaa ka hadlaynaa cibaado maqtaaca ka hadlaynaa nicma soo ma ahan walaalayaal waa nicmo aad iyo aad u weyn anaga hadda ma qabiilaan ka hadlaynaa waa maya ma waxaan ka hadlaynaa waxay tahay waxyaabo oo mala yacni ma dala ka hadlayna ma waxyaabo oo dad miyaa caynina waa maya yaa amaanaynaa mid aan jecelnahay dhammaanteena jacaylkaas ayaan ka hadlaynaa maxaan isku sheegaynaa sida u noolaan lahayn nolol qurux badan sida noloshiina u bedeli lahayn iyo wixii la mid ah waxyaabo wanaagsan waxyaabo ilaahay raali uu ku yahay waxyaabo nabi sal slam raali uu ka yahay waxyaabahaas unbaan ka sheekeynaynaa وتعالى أرنتاس هنغو دلو آمين آمين جزاكم الله خير الجزاء وباركم الله فيكم الله يدين حفظيو قوالدين ينقنا يا روح ضبضن الله يدين حفظيو ولا ليال لايف كان هذا أنشيجيني إن شاء الله تعالى سيفافية قفل بدقيستا جعيلك نبي صلى الله عليه وسلم قلبي جيسا كوسي زيادة أجر آيات كل هذا هاي ولا ليال سيفافي إلهي درتيسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مقع عيسى ملول بيني قاعتوا قصب وأنا واجب مقع عيسى صلى الله عليه وسلم إن قفل بقلبي يعني متول بقول لقمان النبي صلى الله عليه وسلم قفل بمؤكتين قفل بودها صلى الله عليه وسلم فيديو أديك دفع في ست قفل بودها صلى الله عليه وسلم أجر كوات لذا adigoo iska jiifa laga yaaba adoo whatsapp iska isticmaala waxyaabo kale laakiin malaayiin ajir ku soco sababtu maxay tahay sababtoo khayraad ayaad faafisay waxyaabaha ayaa lagu dhaqmayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir ayuu ku siinayaa allah idin xifdiyo allah idin barkeeyo ilaahay dartiisa baa idin jeclahay jazaakum allahu khayra wabarakum allahu fiikum aan isku soo ducayn insha allahu tacaala walaalo badan ayaa ujeeda maasha allah faafinaya allah idin xifdiyo mid ayaa idinkugu ducaynayaa dhammaantiin waa mahadsantihiin قوالدين قوة بدن وأجيدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو داق سودو مختار سودو ماجد سودو هذا دمانتينا لما سودو هذا رحمة سودو هذا جنا رحمة إندوس رحمة محمد لمان سودو هذا سجل إنك بدن تطبق لصدق قف أو هذا دارنا يسل لايف لمان سودو هذا باركم الله فيكم عتيكا سودو لمانتين سودو هذا وولالكنا أبو بكر إذا نجعل خيرك وناقة إلى سبحانه وتعالى هنقدر يكون مغرب بسكوتر دعم خيرك وناقة أمين هذا يجي موضوعي قاقود أجعشين لقى هذا برايفت مسج ويوصل دركة إن شاء الله تعالى أنا وحسكود أيضا أبينا صوصعين الله أصوغل إن شاء الله تعالى موضوعية إذنك أعربتان إذنك دورتا أيان كهدلي عاوة جمعة نمسا عسان أيان دورتا شلي ولا لا يقعد سدينا كهدلنا عبادة وقتك في النظر ما كهدلنا ويكون جرتا فيسبوكا دب أي قدامك كتام دردنا ولا لا يقعد سدينا كهدلا قارئ لهاي مرق ولا هاي مرق وحاسمي مكو حاو بحي موضوع سي آذن مرقون مرقون أيا بحي مكا إن شاء الله تعالى موضوعية إذنك أعربتان وحا إذنك أعربتان أيا أنيقا إي مهم سن وحيابا إذنك أعربتان إن شاء الله تعالى عد سيجينا إن أن والبا أن فوليو أيا هل كان أو فديا إله سبحانه وتعالى هايدن حفظيو أجري حسناتنا هايدن سيو كو خير كو دلال الله نغديغو آمين آمين هوضن حمدي إيمان إسحاق دمانتينا داقيارة ما شاء الله دمان وما سنتهين ولا لبن بهذا فيسبوك دانجل ولا لبن باجيت هذا ما شاء الله قوال سي برايفت مسج يوصل دري ما شاء الله تعالى دمان وما سنتهين الله يدين حفظيه بان يدين لا هاي ما شاء الله ولا علاقة كود اوكي ما شاء الله هذا عرفت انت ضبط دقيقة يوسع على اللايف كان امين الله يدين حفظي دمانتينا ولا على بلان باجيتا برافت مسجد دريا دمان ان شاء الله تعالى وانا قندونا ولاية ادمو الله يدين حفظيه وحنجعل هذا إن شاء الله تعالى هل كان إن أنكو قبيو وعليكم السلام وبركاته محمد حسن وعليكم السلام وبركاته لما نسود بعد إن شاء الله تعالى وحارب أنك هذا شو نعيمة أحمد وحلاذا وحارب أنك هذا شو والدك إن شاء الله تعالى أنيقو فلنا يعود سيجارة ما شاء هذا مسج هذا يعني كي أنيقو فلنا يعود سيجارة إن شاء الله تعالى بيرتو أيان كهذا دونا موضوع ولما يعب هاي هويو وانكو جعله هويو وانكو جعلهاي إن شاء الله تعالى بريتو أيان كهذا دونا دولا إدمو وانسي خوتي
codsiga ugu hore ayay ahayd insha allahu tacaala. marka birito waxaan ka hadli doonaa mawduuca hooyo. hooyo waan ku jeclaa insha allahu tacaala. birita ayaan ka hadli doonaa. dhammaan walaalaha hadda daawanaya waxaan ka codsanayaa biritan inay sida u daawadaan. allah idin xifdi, ilaah dartiis baa idin jeclahay. halkan ayaan ku gabagabeynayaa. habeen wanaagsan, ku seexda hurdo macaan badan, qurux badan. aana iscafin insha allahu tacaala. hana iloobin inaad aqrisid aayatul kursi aad ku seexato sida wanaagsan insha allahu tacaala. waa ku mahadsan tahay. hurdo macaan badan ayaan ku rajeynayaa iyo riyo qurux badan insha allahu tacaala. waa mahadsantihiin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.